Bismillah. Warsama Digital Media. Waydi salaamay dhamaantiin. Soo dhawaad. Maanta waxaanu ka hadlaynaa fikradda bini aadamka ama dabeecadda bini aadamka oo fikrad kasta oo cusub oo horumar ku saabsan ka hor imaanaysa ama dhibsanaysa. Markii aanu dhisaynay dowladda Puntland, dad badan oo xataa qaar ka mid yihiin madaxdii SSDF ugu sarreysay ayaa fikradda ka soo horjeestay oo waxay leeyihiin see kaligaan dowladdu u dhisaynaa haddaan nimankii xamar iyo dagaaloogayaashii xamar iyo nagala soo qaybgaleen shirkan ma dowlad baan anagu dhisi karnaa? waa xaqiiq wey, goobjoog baanu ahaa. magaalada gaalkacyo markii biyogelinta loo sameynayay, dad baa habeenkii tuubooyinka burburinaya oo daldaloolinayay. qaar badanna waxay ku hadlayeen looma baahna, guri walba ceel buu leeyahay. magaalada Buurtinle barkadaa magaalada gudaheeda ku yaalay, markii roobku doo waxaas oo wasakha oo magaalada yaalla ayaa biyuhu qaadayaan oo barkadaha ku shubaya. baaritaan lagu sameeyey cudurradii halkaa ka dhashay waxay noqdeen kuwo aan horey loo arag adduunka. yacni jeermiga halkaa ka dhashay oo barkadahaasu keeneen wuxuu noqday wax lala yaabo. dhakhaatiir Soomaaliya baaritaan ku sameeyey kuwa ajnabiga, xataa biyihii baa la qaado meelo kale la geeyey. waxaa la arkay inay yihiin waxa la yiraahdo halis bini aadamka. biyahaasuna xataa dadka iska dhaafa xooluhu aysan cabbi karin. magaaladii marka biyaha loo sameeyaa ceelal matoor saaran yahay ayaa loo keenay. ma u malaynaysaan inay qaadatay sanooyin in ceelashaas oo ay dhaqan galaan? yacni dagaalka halkaa ka soo dhacay Buurtinle oo matoorkii ceelka la jebinayo, la burburinayo, tubooyinkii la xadayo, maaragtay ilaa matoorkaas uu kharaabo oo malaha 10 goor la bedelo. America markii baabuurta la soo saaray, nimankii fardoolayda ahaa mudaharaad bay sameeyeen, waa diideen, waa ka hor yimaadeen baabuurta cusub, fikradda baabuurta cusub oo la sameynayo. dabeecadda bini aadamka saas. nin baa inta ka yaabay Ingiriisa, waagii malaha Ingiriiskuna xaalad adag bay soo mareen. wuxuu yidhi meeshii ilaah ka dhiso masjid lagu tukadaba shaydaan baa kaniisad ka agmuta buu yidhi. waxaana la ogaaday markii arrintaa loo kuurgalay jamaacada shaydaanku inay ka badan tahay kuwa masjidka. intaas oo dhan carar bay ahayd. waxaan uga jeeday markii la yidhi war dadku ha doorteen goloyaashooda degaan ee magaalooyinka, meeshii madaxweyne hadba inta magacaabo duq magaalo ama governar, markuu rabana cayrin jiray, markuu rabana kala diri jiray golaha degaanka oo aan lasoo dooran ee la magacaabay ama ismagacaabay ama odayaal iyo qabaa'il ay soo xusheen oo markaas ay duq magaalo iska dhex doorteen.
dadkaas hadda ka hadlaya oo leh golayaasha degaan yaan la qaban ama lama qaban karo kama hadlaan madaxweynuhu markuu golayaasha degaan cayriyo, markuu governar cayriyo ama mid magacaabo, markuu kala diro golihii degaan magaalo. waxay ka hadlayaan markii madaxweynuhu soo jeediyey war dadku ha doorteen golayaashooda degaanka. golayaal degaan yacni meeshii ay cid kale mas-uul u ahaan lahaayeen oo marna la cayrin lahaa marna la dhisi lahaa. haddii dadku doorto lamana cayrin karo, waana dad lasoo doortay, waana dad mas-uulka ah dadka khaladaadkay galaanna og in laga daba imaanayo, dadweynuhu ka daba imaanayaan oo mar kale la dooranay. yani wax la heli kara ma aha inay dadku soo doortaan madaxdooda. dadka shacabka ayaa xukuma madaxda, iyagaa soo doortay. golayaasha degaanku saa weeye, bilow weeye. midii kalea la gaaraya doorashadii golaha wakiilada puntland iyo madaxweynihiiba. laakiin dadka chineska waxay yidhaahdaan war boqolkii tillaababa mid baa ugu horeysa, mid baa la qaadaa marka ugu horeysa. kunkii tillaabo bay ahayd, kunkii tillaababa ya tillaabay ka bilaabataa. waynu ku soconnaa saas in aakhirutahan puntland is doorato baynu ku soconnaa. qaar baa waxay leeyihiin siyaasiyiina madaxweynuhu wax kaluu uga dan leeyahay golayaashan degaanka. masalan inuu kororsaduu rabaa muddada xilkiisa. hadda miyaa la gaaray taa doorasho? waxaa la gaaray golo degaan, waxaan leeyahay golo wakiil, ma doorasho madaxweyneha la gaaray. markuu la yimaado ku darsi markaasaynu ka hadlaynaa soo maaha. laakiin tan waa loo baahanya. qaar waxay ku leeyihiin waa loo baahanya golayaasha dagaalka in la doorto oo dadku ay soo doortaan, laakiin wax kalaa meesha ku qarsoon. war waxaa ku qarsoon sooma soo baxayaan. ninkii diidaya markaa ha diido, laakiin golayaasha dagaanka maxay uga hor imaanayaan doorashada? yacni waxyaalaha waalida ah sidii waagii puntland aan samaynaynay lama samayn karo. puntland lama dhisi karo dowlad puntland la yidhaahdo. yacni haddaan dadkii kale ee koonfureed lagu soo biirin. taasoo kale la mid tahay. waxay la mid tahay baabuurtii lasoo saaray oo laga hor yimi, fardooleydi ka horta ay tirahdeen maya suurtagal maaha. intaasaa caawa oran lahaa. aad iyo aad baa u mahadsantiin. wadi salaam.